mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabteen xafiiskooda magaalada Burco waxa ay si cad ugu beeniyeen eedeymo uga yimi xisbiga mucaaradka ee wadani oo ku saabsanaa xadhiga ugaas la sheegay inuu ku biiray xisbiga wadani isla markaasna ay xisbiga wadani ku eedeeyeen in xadhigiisa ka dambeysay xisbiga kulmiye waxaana mas-uuliyiinta hadaladoodii kamid ahaa anigu waxaan ahay gudoomiye garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye ee xeer gobol Bokor Carab Ileeye runtii halkan maanta waxaan shirkan u qabanay inaan iskaga difaacno ama dadafayno ama wax ka jiraan aan ku tilmaano sida dhabtu tahay eedeymo ay noo soo jeediyeen xisbiga wadani oo ay tilmaameen xubno ku xidhan jeelka dhexe Burco in xisbiga kulmiye ka dambeeyay arrinka waxaanu imika iyo mar horeba lahayn xisbiga waxba runtii kuma laha arrinka waxna kama ogin awoodna uma lihin inaan wax ku xidhi karno xisbi axsaabta qaranka kamida ee u tarsamaysa hogaanka dalku baanu ka midnahay arrinkana waxaanu ku leenahay ma jirto saaxiibaday wadani waxaanu leenahay beriyahan waxa gobolkan gaar ahaan ay ka wadeen arrin ay khalkhal ku gelinayaan hogaanka dhaqanka ee dalka arrinka waxay sheegayeen ayaamahan aad warbaahinta ku arkayseen intay dad shiriyaan inay salaadiin magacaabaan ugaasiye magacaabaan uqaal magacaabaan sal iyo raatoon aan lahayn hogaanka dhaqanku runtii wuxuu qayb ka soo qaatay nabadgelyadii dalka xasilintii deganaashihii waa wax runtii uu ku tiirsan tahay nabadgelyada iyo xasilinada dalka marka arrinka hogaanka dhaqanka in la khalkhaliyo oo cid aan ahayn oo aan sharciyad u haysan oo aan metelin dadkii ay ka soo jeedeen hogaan dhaqan laga dhigo oo la caleemo saaro oo arrimo siyaasadeed looga faa'iideysto aad baan runtii arrinka u dhaliilaynaa xisbiga kulmiye waa xisbi qaran ma aha maxaan ku raahdaayay dadka ma xidhxidho xadhigana tuurta kuma sito waxa weeyaan cidda la xidhayo iyo cidda la dooranayo iyo cidda maxaan ku yidhaahdaay la sii daynayaba dee sharci baa xidha sharci baana sii daaya waxaad moodaa inaanay iyagoo ah xisbiga wadani musharaxoodu isagoo ah hay-adda ugu sareysa ee sharci dejinta legislative councilka isagoo ahay inay maanta sharciga baal maraan oo ay ku khaldamaan de horta waa nasiib daro waxaan leeyahay marka hore annagu xusbi baanu nahay xusbi qaran baanu nahay xukuumadda ma nihin haddaan moodeen xukuumadda iyo xusbigu inay isku mid yihiin xukuumaddu way ka madax bannaan tahay xisbiga annaguna xusbi baanu nahay xusbiyada qaranka ka mid ah wax ma xidhno waxna ma qabanno wax xidhaa dowladda waxaanay xidhaa wixii sharciga ku gafay eedaynta xisbiga wadani uu nagu eedeeyay inaanu annagu xidhxidhno marka koobaad xisbiga wadani dee annagu bilays ma nihin mana aha xisbiga kulmiye meel beelaha waxa weeye laga fawdeeyo oo laga khalkhaliyo beelaha gobolka iyo dalka toona Mustafa Ismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco.